soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa qaybta afraad ee seasonka inoo socday qaybtan waa qayb xiisaheeda wadato ka hor inta aanan bilaabin waxa ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe asartid videogan aad like sartid qaybtan waxay ka bilaabanaysaa Johan wuxuu leeyahay qofkii keena June nolol ama dhimasho qofkaas ayaa guuleystay wuxuuna u sheegayaa Ji inuu isticmaalo hadiyadu u siiyay dagaalku sii xoogeysanaya rasaasi qarxay ayaa dhacayo Jina uu dhaawacmaya tartankana ma sii wada karin Johan wuxuu xanaaqayaa qori ayuu soo qaadanayaa isagoo doonaya inuu si toos ah u dilo June maxbuus kale ayaa weerarayo Johanna maxbuuskaas ayuu tooganaya wuxuuna rabaa inuu asii kaliis dilo June wuu isqaranaya wuxuuna soo baxsanayaa mooto si uu u baxsado Johan wuxuu ku soo ridayaa xabado waxaana ku dhacaysaa gaariga uu ku gambanayo June wuxuu gaarayaa meel ka bixi karo wuxuuna qarxinayaa bir ku xirneed mootada taasoo sababtay qarax weyn oo burburisay goobta dhan Johan uu argagaxaya wuxuuna arkayaa June oo baxsanayo markaas Johan aad ayuu xanaaqayaa wuxuuna kor u qaadayaa qorigiisa isagoo ku aadinayo June oo ka cararayo wuxuuna gaarayaa dhinaca kale ee wabiga kadib waxaan arkaynaa asagoo dhar ka xadayo guri banaankiisa kadibna waxa ku da'ay roob asagoo wadada socdo wuxuuna tagayaa guriga no markuu arkane wuu suuxayaa wuxuu isku dayayaa inuu daaweeyo dhinaca kale Johan wuxuu la joogaa maamulaha xabsiga wuxuuna sheegayaa in maxaabiista ay ka qayb qaadanayaan shaqooyinka iska wax u qabso ee banaanka ah wuxuuna leeyahay xabsiga waxa ka dhacay qarax gaas ah qaar kamid ahna way dhinteen maxaabiista waxayna qasaariyeen lacag maamulaha xabsiga wuxuu rabaa in baaritaano la sameeyo June wuxuu ku riyoonayay wixii ku soo dhacay kadib wuu toosayaa ay u keenayo quraac wuxuuna ku dhahayaa waxaan codsaday booqasho badan si aan kula kulmo laakiin waa la ii diiday wuxuu weydiinayaa qorshihiisa mustaqbalka June wuxuu ku dhahayaa halkan joogisteeda waxay ku keeni kartaa khatar weyn waxayna muujin kartaa inaad gacan ka geysato arrin aan danahaaga ahayn wuxuu ugu jawaabayaa maya ma jirto waxaan gacan ka geysanayo kadibna wuxuu siinayaa telefoon June wuxuu booqanayaa walaalkiisa wuxuuna furayaa telefoonkiisa soo u raadiyo qareen Kim wuxuuna ogaanayaa meesha uu joogo kadib harkana Kim asoo qabanayo wuuna garaacayaa Kim wuxuu dhahayaa wax walba waa tirtiray oo dambi ah waxaana fulinaya amrada madaxdeeda June wuxuu ka amrayaa inuu magacyadooda sheego Kim wuxuu ka baqaayay in la dilo hadii uu sheego June wuxuu arkayaa feel uu waday feelkaasna waxa ku jirtay gabar la yiraahdo Sue wuxuuna ogaanayaa inay qorsheynayaan in la eedeeyo waxayna soo aruurinayaan cadeemo kasta oo suurtagal ah sida qashinka guriga ama sigaarka si loo eedeeyo Sue qofkii dambigiisa sax u galanay lama arkayo kadib waxa arkaynaa dhakhtarkii June cirbada ku duraayo inuu la dagaalamayo June wuxuu dhahayaa kan waa kii dilay walaalkayga kadib ninka ayaa baxsanayo Kim ayuu qabanaya wuuna garaacaya asigana wuxuuna u soo gelinayaa qolka bombo June wuxuu qabsanayaa feelkiisu kadibna wuxuu ka boodayaa daaqada bombadana way qarxaysaa Johan dad ayuu la dagaalamayo wuxuuna telefoon ku leeyahay isagoo sheegayo inuu ka baxsaday Johan wuxuu qorsheynayaa inuu dilo qofkii la shaqeynayay maxaa yeelay ma awoodin inuu ka taqaluuso June wuxuu la xiriirayaa qof kale si loogu taqaluuso asaga xafiiska dacwad oogaha baaraha uu sheegayo eedeysanaha in talaabooyinka dacwada ee musuqmaasuqa iyo faafinta xogta la joojiyo Johan ayaa ku sugaya banaanka wuxuuna ku yiri inuu la shaqeyn doono wuxuuna siinayaa telefoon si uu u raadiyo qofka uu baahan yahay June wuxuu ogaanayaa waxa Johan iyo kooxiisa ay sameynayaan iyo dadka lug ku leh wuxuuna maqlayaa cod oo duubay Kim June wuxuu ogaaday inay gabadha Sue ay tahay bartilmaameedkooda maalmahan June ayuu hab siinayaa wuxuuna dhahaa sida isku dayday inaad qaadato dambiga aadan sameynin waa caday inaad dareentay cadaalad darro iyo dulmi xabsiga dhexdiisa kadib sargaalka la yiraahdo Yang wuxuu rabay inuu baaro maxaabiista si uu ogaado waxa dhacay laakiin saaxiibkiisa ka hortagayo amar ka mid maamulaha xabsiga June waxay aruurinayeen xog ku saabsan Sue wuxuu leeyahay ragga Johan ayaa hubaal inay daba socdaan June wuxuu rabaa inuu ogaado kuwaas subaxdii wuxuu June u keenayaa waxyaabaha uu ka codsaday kaamirada wuxuu siinayaa lacag uu ku qarinayo sanduuqa wuxuuna ku yiri qofna ha u sheegin June wuxuu rakibanayaa kaamiradaha wuxuuna bilaabayaa inuu goobta la socdo ayuu gabadha ayaa timid si ay lacag u qaadato June wuxuu mooday tuug wuuna garaacayaa ayaa u imaanayo oo u sheegayo gabadhiisa inay tahay kadibna isbaraaya ayuuna waxay la joogtaa June waxayna weydiisatay kirada isbuuca wuuna siinayaa lacagtii waxayna ku dhahaysaa qamiis kasta ayaan ku imaanayaa waxayna ku dhufatay feer oo tiri hadda waa ka aarsaday wuxuu dhahayaa ha ka xanaaqin iyadu qof xun ma aha way qalbi fiican tahay June runtii wuxuu dhahayaa waa qof wanaagsan Dugyoonku wuxuu Johan ku dhahayaa waa inaad arrinka xalisaa haddii kale xiriirkeenu wuxuu noqonayaa xiriir adag iyo milkiilaha Johan wuxuuna yiri ma arka inaad tahay adeege Dugyoonku wuxuu dhahayaa waan ka heli karaa waan ka taqaluusi karaa lacagtiina dib ayaan heli doonaa aabaha Dugyoongna wuxuu yiri waa inaad dalka ka baxdaa ilaa wiilkaas la qabto Johan wuxuu dhahayaa daryeelkooda nolosha aan siiyay way isticmaaleen si ay ugu hanjabaan wuxuuna wacayaa gabar daryeelka
wuxuuna u sheegayaa June aad ayuu ugu dhow yahay waxaan doonayaa inaan labadoodaba isku keeno si ay iskula dhaqmaan midka kale ayuu waxay arkaysaa sawirka gabadheeda waxayna tiri June muxuu ku daba socdaa isla waqtigaas suu waxay ogaatay wixii June uu qorsheeyay ayuu waxay June weydiisay adigu yaa tahay June ma doonayo inuu ugu jawaabo waxayna leedahay haddii aan isgaran waa eri doonaa suu gabadheeda sharax waxa dhacay ayuu waxay Siyoon weydiisay haddii lagu eedeeyay dil oo xabsi lagu xukumay maxaa dareemi lahayd Siyoon waxay leedahay madaxa ay xanuunayo ayuu waxay leedahay wuxuu yahay qof naxariis daran noo ay u jawaabay gabadhiisa isagoo jah wareersan June waxay ku noqonayaan gurigooda waxayna wararka arkaan in muusikiista la dilay qofkii dilayna wuxuu ahaa milkiilaha kafeega kadibna isagoo isdilay markii booliis goobta soo xireenna Johan ayaa kiiskas qabtay wuxuuna sameynayaa wicitaan caadi ah isagoo ku yiri wasiirka wiilka u safray si uu u nasto kiiskana waa la xiray June wuxuu tagayaa baqaar ay ku jiraan cadeemaha wuxuuna arkayaa dad meed ah isla waqtigaasna dareelo wuxuu u sheegayaa Johan waxaa la kulmay dhibaatooyin laakiin waan ka gudubnay Johan wuxuu dhahay ama ogolaan doon in arrinkan sidan oo kale oo dhacday mar labaad June wuxuu arkayaa madaxa ninka uu dilay Johan ayaa dhahayo mahadsanid June waxa ay caawisay in qorshe fiican sameeyo June wuxuu arkayaa sawirada dacwada gabadha iyo hooyadeeda waraaqad lacag ku dhex jirto oo loo talgalay June wuxuu ka xanaaqayaa lacagtaas wuuna firdhinayaa kadib waxa arkaynaa Doug Young wuxuu dhahayaa kan waa dilaa dhab ah ee raadi Johan wuxuu arkay June oo ka muuqda kaamiradaha wuxuu dhahayaa hadda ayaa si sax ah u raadi karaa qaybtan halkaas ay noo ekaanaysaa han naga iloobin inaan YouTube-keena subscribe saarto videogan like comment qurux badan aad saarto waana maasan tahay